السلام عليكم وين السلامي waxaan ka waramayaa safarkay gaabna aan ku tagay Soomaaliland bishii May safarkan wuxuu ahaa mid aniga ii gaara saaytayna waxaan socod ku maray magaalooyin fara badan inkastoo aan ku bariga tagin wali qaybay dhinayeen waqti ay saamix waayeen inaan ku tago laakiinse waxaan doonayaa inaan qaybtan koowaad aan ka hadlo laba arimood ta koowaad waxa weeyaan arinta shacabka intaan magaalooyinka marayay waxaan arkay dad badan shacab badan oo kala duwan ee ka muuqato isku duubni farxad iyo mustaqbal horumar ay rajeynayaan waxa kamid ah waxaan ka qayb galay 18 May magaalada Hargeysa dad badan baa la kulmay dawladda imika jirta waxay siisay waraaqo iyo kaar aan xagga madaxda aan kula kulmi karo halkii joogaana aan u tagi karo laakiin saxiiso ma qabin inaan madaxda la kulmo maxaa yeelay mar walba ay yimaadaan qorbaha halkan baan interview kaga qaadaa inta tago haddana interview iyo wareysiga ka qaado ومالنا واح مستقبلك يفائدة إني كينيسو بدأ مرب أنت بدل إيه وربعين تي مرور بكوتشران ورر كودا حساب مقابل تا تكلا مركا واحد سمي واحد ضحك علي تدكي والشداها يتنمي لو دي إني كقيب قلان أمين وسود وهذان سكورتي رئيسون أهان ماشي حفلات دك قبسو ميسي ماشي دتك مريا ماشي عيد مدة مريا ماري جاردسكا تاسو مركا واحد شرا كمانا كن أضد إذا كبدن وهابين مدي يمد ولو دي إنها سفكاري مادام مركا ميلو بدن وبقالة كمدا قيب بدن يلو كلا حي مركا دت كاسن دحمري لا كل مي وجيدو وحي عمسيين ودad aad iyo aad isku duubni ka muuqato dhan walba aad aragto inay aad u jecel yihiin inay ka qayb galaan muujiyaan iyagoona waliba arkayno waxa meesha maray wadooyinka maraya haddana way ku faraxsanaa inay ka qayb galaan rajo wanaagsan baa ka muuqatay wajiyadooda farxad baa ka muuqatay waxyaabaha cajiib geliya ka mid ahayd dad isku duuban oo faraxsan bana ayaan runtii arkay kala arinta siyaasadda marka aan soo noqdo inkastoo aan jeclaan aan ka hadlo laakiin haddana waxay aan arkay inaan sheego way habboon tahay xukuumadda hadda jirta oo muuqato wali waxay soo maleeyay inay mucaarad yihiin wali niyadii qalbigii wax walba ay kaga jiraan mucaaradnimo qalad badan xukuumaddii ka horeysay ee sameysay inay saxaan ama qaar ka mid ah saxan way jiraan waa run siba marka loo eego localka laakiinse qaar ka mid ah adagoo waan la hadlay sawir lama gelin horta waxna kama duubin laakiinse waxay aaminsan yihiin inaan ogaado waan jeclaa markaa adaladana isku wadaarsanay waxay u muuqdaan weli inay mentality maskaxdii ahaan aaminsan yihiin weli mucaarad yihiin ay ku tilmaamayaan qaladaadkii rabaan inay saxaan laakiinse aan ku haynin wax horumar ah inay soo kordhiyaan tusaalahaan wadooyinkii kuwii ka horeeya oo qaadeen bay qaadayaan ay ilaa iminka ay marayaan waxaa jira wax cusub ay kusoo dareen ay kusoo kordhiyaan waa run waxaa la sameeyaa wixii hore adoo gacanta ku hay ay wax yaabo cusub oo kala dheeraada xiriir cusub iyo projectyo cusub la keena tina wadadeed ma hayaan tan arrimaha dibadda marka ay laga hadlayo electrikeeda waa talaabooyinkii tii hore ay qaado unba ilaa iminka ay qaadayaan iyo electrikooda taalibiskeeda rabaa inay saxaan waxay ka saxayaan ma arko taa inay waxay doon ku kale inay ku soo kordhiyaan taaygo gacanta ku ay xoojinaya inay ku kale ku soo daraan taan u muuqato waxaan ka rajeynayaa waxay ahayd
inaan markaan iyaga la kulmo ama aan wareysto ama aan sarano inay waxay higsanayaan mustaqbalka aan ka wareysto aan fahmo halkay ka taagan yihiin waxa weeyaan midna taana ma hayaan oo waxa markaad kala hadasho waxa soo qaadanayaan wixii hore qaldamay sida loo sixi lahaa hadda wax projectyo weyn oo qorsheysan iminka ay qabteenna ma arag wax mustaqbalka dhow ay qabanayaan ma arag waxaan jeclaan lahaa weliba haddii ay wax projectyo waaweyn ay qabanayaan inay ka bilaabaan xagga electricity-ga koronto la-aanta waddanka ka jirta inay solar jaban intay dadku u keenaan u xiraan ama qiimo yar intay ka siiyaan projectyo noocaas oo kale loo baahan yahay magaalooyinka in dib loo shido maadaama ceed ay jirto waddankii waa laga faa'iideysan lahaa xagga solarka oo kale wadooyinka qaar waxaan arkay oo weliba magaalooyin qaar ay kala go-ay yihiin aan isku socodkii u yaryahay wadooyinkaas in laga qabto ayaa talabaad jeclaan lahaa ta saddexaad waxaa ka mid ah inaan arko xagga biyaha oo laga faa'iideysanayo biyaha roobka dooxyada waxaa mara biyo badan baa mara dooxyada Somaliland dooxyadaas in kaabada loo sameeyo speed bump oo kale sida kaabada biyaha maadaama la jooji karo awood leeyihiin in meelaha ku yara hakadaan oo fara badan loo sameeyo meelaha weliba iska dhow yihiin dooxyada in halkaasi lagu goro dhagaxaan loo baahan xataa sibid loo baahan in kaabada loo sameeyo meelahaas oo lagu hakiyo biyaha ay ku yara hakadaan maadaama la joojin karo biyaha ay u baahan tahay projectyo waaweyn oo lagu sameeyo daamo biyaha qabta dowladda hore qaybay qabatay laakiinse in wax u baahan tahay kuwaas kale in la laabo oo la badiyo solarka iyo wadooyinka saddexdaas waa saddexda aan u jeclaan lahaa inaan arko saddexda marka iyaga aan kala hadlayna waxa weeyaan inaan ogaado bal waxa ka aaminsan yihiin weli uma muuqdo inay halkaas heerkaasi ay weli diyaar u yihiin marka waxaa habboon inay ka faa'iideystaan xukuumadda cusub ay ka faa'iideysto maadaama isku duubni waddankii uu jiro dadka shacabka ay heegan u yihiin rajo weyn ka muuqato farxad isku duubni waxaas oo dhan iyo mustaqbal ay higsanayaan ay jecel yihiin inay arkaan inay iyagana ka faa'iideystaan xukuumad ahaan ay dadka jiheeyaan oo tusaan waxyaaba ay rabaan inay qabtaan ama ay qaban karaan awoodooda inay dadka usoo bandhigaan ay hore ka bilaabaan projectyadaas meesha doonaan lacagaha ka keenaan laakiin waa inay sida ugu dhaqsiya badan u bilaabaan si dadkiina intaa rajada iyo mustaqbalka higsanaya inay lasirkooda ay arkaan wax la taaban karo inay tusaan qaybta koowaad waa in qaybtan iminka ka hadlayo qaybo kala soo socda waxyaabaan ku arkay oo ku saabsan safarkayga gaabna aniga keligay socod aan sameynay magaalooyinka buuro badan socod ku koray marka laakiinse waxaan go'aansaday inaan dhowr qaybood aan kaga hadlo waxyaabaan ku soo arkay indhahayga arkeen